Hi, welcome back to my channel King Birkhai. Maanta waxaan kuu sharaxi doonaa filim Skyfi horror oo lagu magacaabo Splice. Ka hor intaana filimka bilaabin ka hor, sida caadada noo ahayd anigii daawadayaasheeda sharafta leh, waxaan wada galnaa challenge. Waxaan ku tusi doonaa kilib. Haddii aad kilibkaas ku qosashid, waxaa waajib kugu ah inaad muuqaalka like saartid. Haddii aad ku qosli weysidna, ikhtiyaarka adigaa iska leh, ama dhaaf ama iisaar. كلب ساعة ومرايت حافظ واحدة اسكم مسوفيرن بسم الله الموني ما كنت أقدر ساعة بدارت البضرة وريك بصير بس مرايتي أوقفه بدار لردي سنة قوطة والله الرجال بدار تارت الله ديروي بس الله sidoo kale haddii aad ka hesho filmaan sidaan oo kale loo soo koobo fadlan hay luubina channelka subscribe saaratid oo qalkan like saartid aad u maasan tahay 25,000 wax yar baa inooga dhiman insha Allah subscribe saar mahadsanid filimku wuxuu ka bilaabanayaa laba saynisyahanno la kala yiraahdo Clive Nicole iyo Elsa Cast waa khabiiro ku takhasusay diiwaanka injineernimada hidaha waxayna ka shaqeeyaan shirkad la yiraahdo New State shirkaddu waxay samaysaa tijaabooyin kala duwan kuwaas oo diiradda saaraysa kala saaridda DNA-nada xayawaanada kala duwan si ay u soo saaraan qaabab cusub oo loo isticmaali lahaa isticmaalka daawada Clive iyo Elsa waxay ugu dambeyntii ku guulaysteen inay ka guulgaaraan himiladooda si cabsi leh ayay u daawanayaan tijaabadooda waxayna go'aansadeen inay magac u bixiyaan labada xayawaan waxayna u kala bixiyeen Fred iyo Ginger labada noole ayaa loogu talagalay in loo isticmaalo soo saarista borotiinada daawada xoolaha labada saynisyan ayaa saadaaliyay in haddii si sax ah loo mariyo farsamadu ay noqon karto daawada mucjisada ee cudurro badan oo hadda aan laga bogsan karin sida Alzheimer's iyo Parkinson fikradooda kamiisan heli taageero dhanka maamulayaashooda ee John Jorod iyo William Barlow kuwaasoo si adag u mamnuucay saynisyahanada da'yar inay sameeyaan tijaabinta aadanaha sababtoo ah taasi waxay subcad xumo u keeni kartaa shirkadda Clive iyo Elsa waxay go'aansadeen inay tijaabiyaan si qarsoodi ah dhowr isku dayo oo lagu guuldareysan kadib labadaba waxay ku guuldareysteen inay abuuraan xayawaan u qaabeeg bini'aadamka farxadda ay ka helayaan tubada cilmi baarista Elsa waxay go'aansatay inay walxaha hidde-sidaha geyso qolka dhalmada si ay u bilaabaan horumarinta abuurkooda Clive wuu ka soo horjeedaa fikradda laakiin Elsa waxay aad u danaynaysaa inay sii wadato tijaabada maadaama ay suurtagal tahay inay xal u noqoto cudurrada badan ee bini'aadamka waxay sheegaysaa Clive inuusan ka welwelin maadaama ay burburinayaan makhluuqa ka hor inta uusan gaarin muddada buuxda markaa qofna weligiis ma ogaan doono Clive wuxuu bilaabay mashiinka wuxuuna xirxiray xooshii wuuna bilaabay kadib Clive wuxuu la hadlayaa mid ka mid ah asxaabtiisa ninkii dhalinyarada ahaa ayaa weydiiyey maxay isaga Elsa ka shaqaynayaan laakiin Clive waxa uu suurtagashay inuu su'aasha ka leexiyo dhanka kale Elsa waxa ay baaraysaa inkubeetarka markay garaaca wadnaha makhluuqa si lama filaan u istaagay aad bay u walwashay laakiin si dhaqso ah waxa markale soo muuqday garaaca wadnihii kadib markii ay dhammeeyeen shaqada Elsa iyo Clive waxay u hooydeen gurigooda iyagoo ka hadlaya inay u guuri doonaan guri weyn sheekadu way sii socotaa oo labadoodu waxay aadeen mowduuc ku saabsan dhalmada taasoo ka dhigaysa Elsa mid nerfosa sheekadoodu waxaa kala gooyay alarmiga taleefanka Clive waxay u yaaceen dhanka shaybaarka isla markiiba waxaa soo baxday in urjiifku diyaar u yahay inuu soo baxo inkastoo ay bilo ka harsan yihiin dhalashadiisa qorshaysneed isku day Clive iyo Elsa ee lagu hagaajinayo mashiinka iyo joojinta makhluuqa inuu dhalanayo waa mid aan guulaysan makhluuqa ayaa dhaawac u geystay gacanta Elsa makhluuqii ayaa soo baxay ka hor inta uusan baxsan oo uusan waxyeelo kala geysan Clive ayaa ku qabtay weel caaga hoostiisa waxa uu aadayaa si uu caawiyo Elsa oo gariiraysa misna miyir beelaysa dhaawacii soo gaaray dartiis taas oo u badan tahay inuu saameeyo sunta makhluuqa Clive ayaa ku duray xoogaha daawa waxayna ku soo noqotay sidii hore Elsa iyo Clive waxay ku noqdeen gurigoodii inta makhluuqa waxay si qoto dheer u dhibaysaa Clive iyo Elsa isagoo Clive oo muujinayo inay tahay inay burburiyaan abuurkooda Elsa waxa uu sheegtay Clive inay weli jiraan wax badan oo ay ka baran karaan xaaladiisa laakiin Clive wuxuu u dejiyay inuu burburiyo makhluuqa isla markiiba labadu waxay aadeen shaybaarka si ay u dilaan makhluuqa kaliya waxay heleen wax muuqda meyd oo ku jira inkubeetarka markii baaritaan dheer la sameeyay Elsa waxay ogaatay in uu dhintay oo kaliya oo ku jira inkubeetarka waxayna ogaayeen in dhammaan jirkii makhluuqa ay maqan yihiin isla markiiba waxay maqashay shanqar yar oo degdeg ah oo ku soo socotay iyada waxay la kulantay noole yar oo digaag web oo ag Elsa iyo Clive waxay ku guulaysteen inay qabtaan makhluuqa ay bilaabaan inay daraasad ku sameeyaan kaliya waxay ogaadeen inuu ka soo saari karo sunta inkastoo aysan jirin hiddo-wada ugaadhsi oo ku jira DNA-nada iyadoo nolosha makhluuqa sii socoto waxaa la ogaaday in makhluuqa uu si degdeg ah u duquubayo sababtoo ah cilada DNA-da awgeed habeenkii dambe Clive wuxuu la kulmay Barlow oo u sheegay in haddii aysan iibin karin borotiinada daaweynta ee Ginger iyo Fred in shirkadda New State ay goli doonto dhibaato weyn
Clive iyo Elsa ayaana eedeynta qaadan doona. Bill ayaa dhaaftay oo makhluuq ayaa koray oo noqday mid aad weyn iyadoo ku salaysan habka ay u dhaqmayso. Waxaaba la dhihi karaa inuu leeyahay heerka garaadka bini'aadmiga oo kale. Elsa waxay xiriir la sameynaysaa makhluuqa iyadoo la dhaqmaysa sidii ilmo oo kale marka la eego tijaabada sayniska, taasoo aad ugu lulay Clive. Waxay ku sii socotaa ilaa ay ka sii dayso makhluuqa aagii ku jiray oo ay dabool ka qaado kadib markii xayawaanku uu awooday inuu akhriyo magaca shirkadda Ned oo ku qornaa fanaanada Elsa. Elsa waxay go'aansatay inay magaceeda u bixiso uguna yeerto Drain, kaasoo ah magaca shirkadda Ned oo gadaal loo akhriyay. Daaweynta Elsa ee Drain waxay keenaysaa muran u dhexeeya Elsa iyo Clive. Sida muuqata, tijaabadu ayaa dhibaato ku ah in la kashfo maadaama shaybaarkooda lagu wado in dib loo cusboonaysiiyo, taasoo furaysa suurtagalnimada qof inuu arko tijaabadooda mamnuuca ah. Taasi waa marka Clive walaalkiisa oo lagu magacaabo Govin uu si qarsoodi ah u soo galo qolka si uu u maqlo sheekadooda, laakiin si lama filaan ah Drain ayaa ku soo booday. Isagoo argagaxsan ayuu si degdeg ah goobta uga cararay. Si Drain loo qoriyo, Clive iyo Elsa waxay go'aansadeen inay Drain ku qariyaan sanduuqa kaadhka oo ay ku qoriyaan meesha wax lagu keediyo, macnaha baqaarka, kana fog indhaha dadka iyagoo u naxaya iyaga. Drain waxaa qabatay qandho aad u sareysa taasoo aad ugu welwelsantahay Elsa. Elsa iyo Clive waxay si degdeg ah Drain u dhex geliyeen biyo qabow si ay qandhadeeda u dejiyaan. Markii Clive uu ku dhexay Drain biyaha hoostooda ayaa waxay ogaadeen in makhluuqa biyihii ay saameeyeen sanbabadiisa. Habeenkaas Elsa waxay daryeelaysaa Drain iyadoo siinaysa boonbale caruusada taasoo u keentay hooyadeed markii ay ilmaha ahayd. Sida waqtigu soo socday, Drain way kortay, waxay noqotay mid u qaabag bini'aadamka, muuqaal ahaanna u ekaatay dumarka. Elsa iyo Clive oo waqti romantignimo isla qaadanaya ayaan waxaa aragnaa Drain oo si qarsoodi ah iyaga u daawanaysa kana daawanaysa qolka xiga. Maalintii xigtay, Clive iyo Elsa waxay dadweynaha u soo bandhigeen abuurkooda asalka ah, Fred iyo Ginger. Nasiib darrase, xaaladdu hal mar bay isbedeshay oo qasmatay maadaama labada makhluuq ay isu rogeen rabshado iyo dagaal dhimasho leh. Clive iyo Elsa waxay ogaadeen in Gingerku isku bedelay lab. Sababta ay sidaas u yeelaysay ayaana la garanayn. Elsa iyo Clive waxay go'aansadeen inay Drain u raraan guri beereed hore oo Elsa hooyadeed lahayd. Markay beerta tageen, Drain way carartay si ay cunto u hesho. Clive iyo Elsa waxay u soo gudbeen guriga beerta. Markay albaabka fureen, waxay la kulmeen qol wasaqa oo kaliya taalo sariir, kursi iyo hal baaldi, taasoo muujinaysa in Elsa ay ku noolayd deegaan xadguduba markii ay yarayd. Dhanka kale, Drain kuma qanacsana nolosheeda beerta, iyadoo hal-abuurayaasheeda ay mar walba shaqada ka aadaan si ay u ilaaliyaan shirkadooda, waxayna uga tagaan bisad kaliya. Drain waxay noqotay caasi, taas oo si fiican u qaadata amarka Clive. marka la barbardhigo Elsa oo aad u dhibaysay. Elsa waxay go'aansatay si ay Drain u ilaaliso inay guriga joogto si ay ugu farxiso Drain. Elsa waxay u marinaysaa makeup waxayna u xirtay dahab. Marka ay Elsa hubiso miiska qurxinta, waxay helaysaa sawirro badan oo gacan lagu sawiray, laakiin iyadu kumaysan jirin. Drain way ka baqday werwer markii ay heshay Elsa oo carartay bisadeeda, taasoo Elsa kaxaysay una sheegtay in Drain aanay heli karin wax kastoo ay rabto, taasoo qayb ka ah koriinkeeda. Clive markuu guriga yimid waxaa arkay Drain oo murugaysan, wuxuuna isku dayay inuu ka farxiyo isagoo u shiiday xoogaha muusiga uuna la dheeldheelaya. inta uu qoobka ciyaar ku guda jiray Clive waxa uu dareemay dareen mamnuuc ah oo ku wajahan Drain. isla markiiba waxa uu ogaaday in Elsa ay isticmaashay qaybo ka mid ah DNA-da intay abuurayeen Drain. wuxuu aaday Elsa wuxuuna u sheegay khaladka ay samaysay kadib Clive oo soo baxay. kadib Elsa waxay go'aansatay inay Drain u soo celiso bisadii ay hore ugu qaaday, laakiin Drain way dishay, taasoo keentay in Elsa ay wejiga ka dharbaaxdo Drain waxa ay ku soo duushay Elsa si ay waxda furaha una baxsato, laakiin waxa gadaal bir kaga dhufanaysa Elsa. waxay ku xirxirtay miiska qalinka. Elsa waxay bilowday inay ka bixiso dahabkii iyo dharkii Drain habdhaqankeeda rabshada la awgeed, waxayna ka jartay sayntii. marka way kala yimid, Elsa waxay dib ugu soo celisay sayntii shaybaarka si ay u hesho borotiinada oo ay ugu samayso shaqadeeda. maalintii xigtay, Clive wuxuu aaday beerta isagoo raadinaya Elsa, laakiin wuxuu la kulmay Drain taasoo isku dayaysa inay isa sabato isaga. Clive ayaa markii hore diiday, laakiin ugu dambeyntii wuxuu u hoggaansamay rabitaanka Drain oo labadooduba hadda si toos ah ay waqti wada qaadanayaan. waxaan ka xumahay muuqaalkeedii ma tusi karo sababtoo ah anshaxa muu wanaagsano. inta lagu guda jiray falka waxaa la arki karaa in Drain ay dib ugu soo baxay sayntii hore looga jaray. Elsa ayaa si lama filaan u soo gashay iyagoo hawsha ku guda jira, way carartay weliba iyadoo nacday. Clive ayaa ka soo daba orday, labadooduna waxay galeen gaarigooda oo waxay aadeen gurigooda, halkaas oo ay ku murmeen. markii ay doodii dhammeeyeen, labadoodiiba waxay ku soo noqdeen gurigii beerta. keliya waxay arkeen Drain oo meyd ah oo dul saaran sariirteeda. meydkii Drain bay aaseen, dharkeediina way gubeen.
intay aruurinaysay alaabta Dareen, Elsa waxaa heshay sawirada Dareen, waxaana meesha yimid Kevin iyo Barlow iyagoo ogaaday sirta Elsa iyo Clive. Ka hor intaanay wada hadal yeelin ayaa Dareen si lama filaan u soo muuqday, isagoo hadda u muuqda nin laba oo muujinaya in Dareen sida Ginger uu isu bedelay jinsiga ka soo horjeeda. Dareen wuxuu noqday mid aad u xanaaqsan oo wuxuuna dilay Barlow iyo Kevin, wuxuuna ku duulay Clive. Elsa waxay ku guulaysatay inuu cararto keynta, laakiin aad umaysan fogaan maadaama Dareen uu si degdeg ah u qabtay iyada. Dareen waxa uu ku soo booday Elsa, dhulka ayuuna ku riixay oo wuxuuna ku qasbay inuu galmoodo iyada, laakiin waxaa ka soo gaaray Clive oo Dareen dhabarka qoray ka taagay. Dareen wuxuu weeraray Clive, taas oo sababaysa in Elsa ay madaxa dhagaxa uga garaacdo Dareen, sidaas ayuuna ku dhintay bahalkii Dareen. waxaas oo dhan kadib Elsa weli waa shaqaale, waxaana la siiyey fasax ay ku sii wado cilmi-baaristeeda borotiinada ku jira jirka Dareen. Markay istaagtay Elsa waxaa muuqata inay uur leedahay, taasoo tilmaamaysa suurtagalnimada ah inay sido ilmaha Dareen. filimkan intaan uu ka egyahay waxaan rajeynayaa insha Allah inaan ka hesheen. fadlan haddii aad ka heshay muuqaalkee like saar, channelkana subscribe saaro. mahadsanid. Body, 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 body.